xildhibaanada shalay la dhaariyay xildhibaanada markii shalay la dhaariyay baan rabaa inaan kelmad meeshan uga diro laba kelmadood baan leeyahay mid waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo diinta aynu aaminsannahay midna waxay ku saabsan tahay dhaartii ay dhaarteen dhaqanka iyo diinta aynu aaminsannahay waxa ay sheegayaan qofka mar walba oo ay uu xil u soo kordho waxa u soo kordhay inuusan ahayn privilege waxa u soo kordhay inaysan ahayn faa'iido waxa u soo kordhay inaysan ahayn mansab iyo munaasabad ka wanaagsan tiisii hore laakiin waxa u soo kordhay ay tahay culays iyo su'aal iyo ammaano la qaado oo ilaahayna uu kala xisaabtami doono annagana aan ku eegayno saa darteed xildhibaan baad noqotay brotocool baad yeelanaysaa albaabada waa lagaa furayaa safaraad aadaysaa shirar baad ka qayb gelaysaa maya dhinaca kale waxa weeye ummatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam oo soomaali la yidhaahdo xilkeeda 100,000 kun oo ka mid ah dhabarkaaga saaran 15 milyan markaana oo 320 iyo dhowr xildhibaan ay codkeena ku hadlayaan qofkiiba meeqo cod buu u dhigmaa intaasaa qof walba dhabarka u saaran oo dembigoodii uu ka mid yahay dayacooda uu ka mid yahay dhibaatadooda ay ka mid tahay daryeel xumadooda ay ka mid tahay cumar ibnu khataab muxuu dhihi jiray radi allahu canhu intuu ooyuu dhihi jiray basra hasha ku turanturoonaysa waxaan ka baqayaa inuu ilaahay iga waraysto oo uu yidhaahda maxaad jidka ugu hagaajin weyday walaalayaal haddaad jid ku dhistaan mas-uuliyaddiina xilkii waad gudateen haddaad iskuulle ku dhistaan xilkii waad gudateen haddaad jaamicaad ku furtaan xilkii waad gudateen isu daneeya haddii aad doontaanoo haddaad soo saartaan xeer idinka idin protecti garaynaya inaad nolol wanaagsan ku noolataan idinkoo dalkiina joogo oon dal kale aanan aadin waxaad qortaan xildhibaanada maanta jooga xilka ha hayaan ama ha ka tagaan inta noloshooda ka dhiban qof walba bushaarka intaasuu qaadanaya haddii laydinka yeelo oo soomaali ku heshiiso xalaalun calaykum waa laydin ogolyi laakiin intaad intaas soo dhaaftaan oo wax gacantiina ku jira aad gacan dhaaftaan ha isku dayana waxaan gacantiina ku jirin oo ka dhaxeeya dadkaa gaajaysan oo qaarkood banaanka masaajidka ay ku tuugsanayaan qaarna dayacan ognahay ay ku nool yihiin qaarna ay shabaab haystaan mustaqbalkoodii inaad iibsataan ama mustaqbalkoodii inaad dhacdaan oo dibadda ula dhaaftaan arrintaa iyada walaalayaal ha isku dayna waxaa laydinka rabaa marba haddii qalinka uu idinku dhacay oo aad maanta dhaarateen berritoole go-aankaad u qaadanaysaan ummadda soomaaliyeed inuu noqdo go-aan aakhira idin bixinaya adduunkana sharaf iyo magac idiin soo jiidaya waxaad go-aan ka qaadanaysaan yaa madaxweyne noqonaya yaa ra-iisul wasaare noqonaya yaa wasiirro noqonaya ummaddan dhiiggeedii baad go-aan ka qaadanaysaan mustaqbalkii iyo masiirkii baad go-aan ka qaadanaysaan ajyaasha soo socda wax saameynayaad go-aan ka qaadanaysaan go-aanka ummatu muxamedin aad u qaadanaysaan ha noqdo go-aan idin bixiya berritoole cidna ha ugu danayninee lafihiina ku danaysta waxaad awoodi karaysaan inaad berritoole soo xushaan qofka soomaaliya berri hagi doona madaxweynaha noqon doona 4 sano oo soo socoto xilkaa ladiin dhiibay lacag ma jooga aslanna xaq baad ula haydeen nin idinku abaal sheegan kara ma jiro nin idin soo saaray iyo nin laaluush idinka bixiyey iyo nin idin soo baritaaray maya ma soo baxdeen ummaddaasuu ka dhexeeya xilka aadna u haysaan kaa isagaa ummaddu ka mid yahay amar gaara idinkuma leh wax xisbi loogu adeega ma aha danayse wax loogu adeega ma aha dhaartii uu dhaartay nin isagu buriyey wax loogu daneeyo ma aha waa wax loogu daneeyo ajyaasha iyo mustaqbalka iyo waxa soo socda wey saa darteed markaad keligaa meesha joogtid oo aad korosgaraynaysid warqadda waxa aad la macaamilayso waa mustaqbalkaagii iyo kan ubadkaagii iyo kan waalidkaa iyo kan walaalaha iyo keenna oo idil in marka hal nin uu ka qiimo bato oo danaysto oo tiisa raba arrintaa iyada allana waa idinka waraysanayaa aakharana xisaab baa taalla adduunka inta la joogana haddii ummaddu waxbay warin doontaa waana markhaatiga ilaahi subxaanahu wa tacaala marka mas-uuliyaadku waxay la cuslaadaan hadba qofka xilkiisi iyo imkaaniyaadkiisi intay dhan yihiin imkaaniyaadkiina hadday gaaraan soomaali inaad go-aan u gaadhaan waxaad ugu go-aan gaaraysaan waa inuu noqdaa wax dhaafsiisan hunguri arsaaqda ilaahay baa qoray waayi maysid kuwa aadan ka warqabin baa ilaahay masruufaa badaha guntooda kuwa ku jiraa ilaahay masruufaa tan iyo haddaba waxaad kusoo gaarteen nolol mar aadan dayacnayn heerkana allah kusoo gaarsiiyey allihii kusoo gaarsiiyeyna waa joogaa isagaana ku masruufaya yaysan marka iishuugu uusan noqonin in ummadda mustaqbalkeeda iyo farxaddeeda la dhaafsado lacag iyo dhaqaale oo meelay ku dhammaata aan lahayn oo iska iimaan la-aana walaalayaal waxaan idiin sheegayaa oo wallaahi ah oon magacyada ilaahay idinku dhaaranayaa ma jiro dal dowladnimadiisa ay ku dhisantay laaluush oo liibaan ku gaaray
laba mid weeyaan marka in la kala doorto dowladnimada noo qalanta iyo in la doorto laaluushka iyo waxa wasakda ah ee hadda maanta lagu jiro go-aanka idinkaa iska leh idinkaana isu goynaya annagana waxaad goysaan baab waxa weeye lagu qasban yahay laakiin sidan ahaan mayse ummaddan rabbi bay leedahay subxaanahu wa tacaala qodobka ka labaad waxa uu yahay dhaartaad dhaarateen markaad dhaaranayseen inta wax kasta oo kale laisla soo dhaafay oo lais aamini waayey baa ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala meesha la keenay markii meesha la keenay baa waxaa la yidhi noogu dhaartay kitaabka isaga waxaad tidhaahdeen ilaahay magaciisa nagu aamina dhaartu taasay ka dhiganta waa maalin ramadaan ilaahay magaciisii aad ku dhaarateen waan idinku aaminaynaa haddaad dhaarta ka baxdaan annaga noogama aadan bixine ilaahay baad uga baxdaan annaga noogamaydaan bixine allaad uga baxdeen naftiinaadna uga baxdeen faman nakatha fainamaa yankuthu calaa nafsih waman awfaa bima caahada calayhi allah fasayu'tiihi ajran cadiima qofkii dhaarta buriyaa ballanka buriyaa waxa laisku ogyahay buriyaa naftiisa ayuu ku ballan furay cidna wax ma yeelin isagaa alkhaasiru lawxad ah qofkii ballanta furiyey iyo ballankii ilaahay uu la galayna ilaahay ajar weyn buu siinhayaa kii ballanta buriya soo maaha cadaab weyn baa ilahay siinhaya subxaanahu wa tacaala axaadiista nabiguna saasay tilmaamaysa salawatu llahi wasalaamu caleyh marka dhaartaad dhaarateen waxay tahay walaalayaalow oo walaalayaalow xildhibaanow waxa ay tahay ilaahayow magacaagaan nalagu aaminay magacaagaanan ku shaqaysanaynaa ee magaca ilaahay ummatu maxamed inaad ku sirtaan maskaxdeena iyaanay kusoo dhicin maanta haddaad wax qabanaysaan magaca ilaahay ummadda islaamka ahe la yidhaahdo ummatu moxamed ee soomaaliya u heliya idinka idinla taallaa nin jeclaysi ma aha wallahu lmustacaan qabyaalad ma aha war waa ceebaysannahay billahi calaykum war waa ceebaysanna war caalamkii waxaan u noqonnay sumbuulka iyo halbeega ceebtaan u noqonnay ilaa iyo intee baa lagu jirayaa goormuu soo baxayaa mid loo aayo oo lagu bulaalo oo la yidhaahdo marxaladdan in laga gudbo intan in lagu joojiyo weeyaan goormuu soo baxaya idinkaan rajaynayna inu idinka soo dhexbaxo biidn illahi tacaala halkan aad ku darsanaysaan cidda aad dooranaysaan madaxweyne aad dooranaysaan waa inuu noqdaa qof ammaano leh waayo dalka amni daraa ka jirta qofaan ammaano lahaynna amni ma keeni karo taa qabsada isaga hadduu dayacan yahay oo uu farihiisa kala xadayo oo xoolihii soomaali magaceeda ku yimid ee weliba aanan gudahooda badankiisa aan ka soo bixin uu soomaali inuu ku laayo u isticmaalayo ama ku dibindeeyo ama kursiga ku haysto ama kursi ku dhaxo ama reer ku turantureeyo kaa isagaa maha kii amnigaaga sugi lahaa waana sababta iyo sirta ka dambaysa intaasoo sano 2,000 wiil oo cisaabo mujrimo ah in loo maara waayo oo salaadii laga tukan waayo oo jumciya jamaacadkii lala soo oogi aadi waayo oo la yidhaahdo 4 sano oo kasta oo xilli madaxweyne ah in la yidhahdo waxaa maqan dastuurkii baa qabyo ah diiwaangelintii baa maqan doorasho qof iyo cod waa la gaari waayey ammaanka waa la sugi waayey qabaa'ilka way ismagaciisiysan yihiin limaada khaa'in baad doorateen khaa'inna ma raba intaa inay hagaagto mushkilaadkan haysa maxaa ka mid a maxkamadda suuriya maa la dhiso baa laleeyihi ninkii maxkamadda dastuuriga ahayd dhisi lahaa hadduu aaminsan yahay maxkamadda haddaad dhisto adigay xilka kaa qaadi doontaa miyuu kuu dhisayaa maya saa darteed waa khaa'in waxaa la leeyahay ciidamadii baa waxaleeyey ciidamadii markay waxaleeyeen maxay uhaleeyeen ciidamo tayo leh tayaday ciidanka u baahnaayeen lama siinin tabartay u baahnaayeen lama gelinin ayagoo naftooda huraya oo dhimanaya oo ciridda taagan oo culayska oran uu ku dhacayo baa haddana aanan looga faa'iideynaynin timekooda maxaa soo baxaya markaa ciidamo uu isleeyahay waad ku dhex noolaan kartaa ayaa soo baxaya ko markay soo baxaan taa iyadaa dayicu mushkilada oo dhan waxay taabanaysaa mujtamacii bay taabanaysaa mujtamaci haddii ciidamo la dhiso oo boolis fiican la dhiso wuxuu isleeyahay adigaa tuugo waa lagu soo qabanaya waa lagu xirayaa maxkamad fiican haddii uu dhiso uu geeyo qudaad wan wanaagsan wuxuu leeyahay maxkamadda marka la saaro adigaa jeelka ku waaraya war hal qof looma shaqayn karo oo nin khaa'inahoo ilaahay iyo islaamka ka furtay danihiisa soomaali inay maanta iyo berriba u sacabtunto ayaguna ay dayac ku noolaadaan wax la awoodi karayo wax lagu noolaan kara maha waanana deeqi leedahay arrinta iyada maxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaasa tallaabo looga qaado 13 wiil baa sabab u ahaa baa la yidhahdaa xurriyada maanta aan ku naaloonayna ilahay subxana wa tacala ha u naxariisto oo qabrigooda rabbi ha u waasiciyo war idinkoo intaa ka badan oo ka aqoon sarreeya oo ka da'weyn oo ka khibrad badan oo soo arkay wixii dayac ahaa oo ku dhex nool inaad waxaas inay wax iska bedelaan aad ka shaqaysaan baan maanta marti idinka nahay bacd allah taa waa taa weeye walaalayaal inama deeqdo
inaan dalka ka shaqayno caa'ilaadkeennana ay dibadda ku nool yihiin limaada wixii ay dalka ugu noolaan lahaayeen idinkaa u diiday saa darteed meeshii samaysatay waxay u baahnaayeen baan geynaynaa aniga soo maaha kuwa baan la halgamayaa warkaa ina bixin mahayo waxaan u baahannahay dib u soo noqosho dalkii oo lagu wada noolaado cuquushii soomaaliya oo laga wada faa'iidaysto kuwa qurbaha joogo khibaraadka iyo ka faa'iiday cilmiga intay waddanka yimaadaan meeshay waddamo kale u faa'iidayn lahaayeen ay juhdigooda meeshan geliyaan laakiin haddii uu ka baqaayo hadduu hebel yimaado anuu kursiga iga qaadaya saa darteed siuusan u imaanin tanaan walaaqayaa meesha waxa yaalla waxayna anfacaya ma aha qodobkan ugu dambaysiinaya waxa uu yahay waxaan soo marnay 12 bisha afraad abriil ee dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya dhinac marka laga fiiriyo ciidan inuu ku dhisan yahay waa sharaf iyo amaano waa sharaf iyo amaan dhinaca kale marka laga fiiriyana shabaab inay maanta jaziira haystaan oo Puntland ay dhex joogaan oo galmudug ay nus haystaan oo Hirshabeelle aan gawaari la isaga dhex raaci karin oo xamar iyo jawhar diyaarad la isaga raacayo bale waaba dhif iyo naadirba marka laga soo tago labadan maamul Somaliland iyo Puntland meesha la yiraahdo waddanka intiisa kale diyaaradan baa facilitieskeedu u noqday limaada dhulkii baladaas baa soo shuftada baa ku jirta marka ciidanka loo dabaaldegayo walaalayaal oo sanad guuradiisa loo hambalyeeynayo waxaa fiicnayd inay noqoto dabaaldegu guul ee aysan noqonin gutiris 62 ciidanku waa gaareen laakiin maxay ku gaareen ma ciidankaad ku rabti garayseen siyaasadda u isticmaasheen qabaa'isha u adeegsateen ee goobo nabada inta la geeyay loogu duulo lagu baabi'iyey shabaabna aan dadka ka dhicin karaynin kuwii dhufayska joogayna ay ku dayacan yihiin oo aysan haysanin siyaasad jihaysa iyo mabda ay ku duulaan iyo caqiidatul harbi lagala dagaalamayo ma ciidankaasa waxa weeye ciidan dabaaldeg in loo sameeyo ay tahay mise waa ciidan in loo tacsiyeeyo mudan yani waxaan leeyahay ciidankaasi waa dadaaleen xilkoodina waa guteen laakiin siyaasi faashil ah ayaa fashiliyey ciidanka uu isticmaalka loo isticmaalaya qaabka ay yihiin ayaguna ma qabata annaguna kuma eegan karno isticmaali karaa ilaahay marka inta laga boqo amaanadii saxda ahayd ha loo soo jeedsado shaqada dayacan ceeb waxaa ku filan ciidankii tarabuunka intay soo maraan waddanka oo wada furan loo dabaaldegi jiray markay marayaan meesha iyada ah in waxa weeye lagu soo xiro ganjeelooyin oo inta dabaaldega suubinaysa intii la mid ama ka badan ay waardiye ku jiraan intaasoo bilood oo ilaalinayaan meesha inaan qarax lagu xirin adeerow shaqada saxda oo in la qabta la rabay ma aha in la maro waxa weeye in salaan la kala qaatiyo in la gaardiye waxay ahayd ciidanka ammaan ay banaanka intay ku maraan tuutaha dhigaan ay bakhaayadaha kafee kaga cabaan in loo sameeyo ayaguna ay ka shaqeeyaan waxaasaan doonaynaa in la sameeyo wax laga qabto waana dishay oo runtii waa dhibsanay oo waa ka daalnay ceeb inta horteena lagu sameeyo in la aamuso oo la yidhahdo shibdhe hebel baa xanaaqay heblaaya xanaaqays war annagoo dhan baa xanaaqsan annagoo dhan baan performancegeena raalli ka ahayn diinna ma haysaan dowladnimada ma haysaan dayac baana meesha yaallo in lidin aamusana waa rabtaan xaggee baad ka helaysaan shabaab baa dad ka dhicin laadihiin oo weliba xan baa soo baxaysa waxaan leeyahay waa la wada shaqaystaa war ninkii dawladda ii ahaa markuu tuugadii la shaqaysto aniga aw dawladdayda waayo qofkii matala ii sheega qaraarulmasiir miyaanan xaq u lahayn miyaanan tayda ka fikiri karaynin intaysan ummaddu idinku soo jeedsanin wax laydinka sii jeedsan sameeya oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala say tahay ha loo dabaqo dadka ammaanada iyo xilka loo qaadayna ha laga dhabeeyo waayo taasaa maantana lagu wada xisaabtamaya berrina alla uu idin weydiin doonaa subxaanahu wa tacaala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد